ذكروك عندي في حديث عابر kasta qiimihiisu waa waxa uu hagaajin karo waa farsamadu yaqaaniyo wuxuu yaqaano wal khaasatu taqul buu yidhi laakiin dadka indheer garadka iyagu waxay yidhaahdaan buu yidhi qiimatu kullu mri'in maa yatlubu qof kasta qiimihiisu waa hankiisa iyo halka uu hiigsanayo wuxuu doonayo yani caamadu waxay yidhaahdaan buu leeyahay qof kasta waa intuu garanayo laakiin khaasada waxay tidhaahdaa buu leeyahay qof kasta waa intuu ku haminayo iyo intuu ku warwarayo uu raadinayo أبو طيب المتنبي شاعر كعربية معروف كها المتنبي دي وحاب يسكت دينو النبي شكته وحوقا أبو كتبرسيي من كسال حدي آخر كيبو كطابت كراو كسان نقضي متنبي باو حليه قبيه ديسه ديوان كيسا قيب دنبا كوشرتو آدو تربضا أو كقو رمي همي سرية هنك سرية قفكو ماشو ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام بولي ما نرك بولي ceebta bini aadam ceeb ka liidata qof wax awoodo hakrado meel hoose jooga qof wax awoodi kara oo haddana aan samaynaynin ceeb ka liidata anigu maan arag buu leeyahay ayuha alaxiba himmadu markaa waxay idhahdaan waa laba qaybood qayb waa wahbi yani waa loo dhashaa qaybna waa kasabi bay idhaahdaan waa la isku tarbiyeeyaa waa la kobciyaa laakiin qof kastoo bini aadami nooc min alhimma wuu ku dhashaa walidaalika baa waxay ku tilmaamaan bini aadamku wuxuu ku kala gedisan yahay bay idhahdaan laba shay mataalibahum wa ahdaafahum waxa ay doonayaan ama hadafkoodu wuxuu yahay taargetka goolka yoolka meesha uu raadacaynayo halka uu ku socdo bini aadamku wuu ku kala gedisan yahay dee nin janno doonayo raadcadeed ku jira oo booska ugu yar uu yahay dunidan tobanlaabkeed iyo nin qurs yaroo dunidana qayb ka mida ku mashquuli waa kala nooc waa laba hamo cirka iyo dhulku inta isu jira waayo ninna wuxuu raadcadeed yahay adduunkan tobanlaabkeed baa ninka u boos yari leeyahay marka adduunkan tobanlaabkeed wax ka ballaadhan buu habeen iyo maalinba raadcadii ku jira ninna wuxuu raadcadii ku jiraa maxay in yaroo adduunka ka mid ah madaxnimo tuulo yaroo intaynan aynu deganoo kale inuu maamulo iyo wax la mid ah waxoogaa lacaga reer hebel inuu u dhaqaalo bato inahaasuu raadacadiisu tahay waa laba hamo aad u kala fog idan bini aadamku mataalibta iyo ahdaafta waa ku kala gedisan yihin waxay kaloo ku kala gedisan yihin bay yidhaahdaan alhimam almuusila ilaa hada almataalib walahdaaf hanka gaadhsiinaya meeshaa oo mid baa han iska haya laakiin hankiisu waa riyo maba dhaqaaqo waxba ma qabto idankaasi day dreaming buu ku jiraa waa qoladan ay yidhaahdaan socodku ku riyooda dadka badhna markay seexdaan oo quray riyoodaan dadka badhna iyagoo soconaya riyoonayaan soo jeeda yani ninkana waa riya wixiisu waxay yidhaahdaan markaa qofka ku haminaya mataalibta sare carab ahaan af ahaan ka sheegaya laakiin ficilkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu aanu u muuqanin caynkaasi waa mutamanni bay yidhaahdeen maqruura laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli alkitaab man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ammaanidiinna waxaa iskaga yididooloonaysaan ma aha baa ilaahay leeyahy iyo ahlu kitaabku iyaguna waxay ku yididooloonayaan ee man yacmal suu'an yujza bihi ciddii xuma samaysa waa lagu abaalmarinaya idan qofka isagu hami baan leeyahay leh laakiin ficil aanu ka muuqanini kaasi waa mutamanni ama waa maqruur waa mid la kadiyey mataalib dunyaana tamani qura laguma gaadho ee addunya khallaaba bay yidhaahdeen waa rag iska dhicin iyo loolan ayaa lagu gaadhaa oo loolanka ay ugu horrayso naftaada aad la loolanto wax ku xidhxidha naftaada ugu adag in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim maa bilanfus haddaanad jebinin waad xidhxidhantay waataynu hore u tilmaamnay inaynu silsilada nafta ka jebinayno macnaheedu ah haddaanad xadhgan koowaad jebin ficilku maba socdo walidaalik addunya khallaaba bay yidhaahdaan waxaa lagu gaadhaa legdan
idan dadka waxa ka mid ah qaar koow kuwaasi waa guruubna iyaga marka horeba hamigooda liita oo safaasif al-umuur iyo wixii liita ayay hamigoodu yihiin oo qaybta tan han wuu leeyahay hadafka ka xun مثلا waa nin han leh laakiin hadafkiisa in la tunto iyo in la heeso iyo in la boodboodo iyo in dunida la marmaro intan ba hadafka liita laakiin shaytaannimada wuu ku xeel dheeriyay xog buu jiiraya waa leeb xagga kale uga dusaya laakiin ka hadii hadafka loo saxo wuxuu noqonayaa kuwii nabigu lahaa maxay annaasu macaadin khiyaruhum fi الجاهلية khiyaruhum fi الإسلام إذا فقهوا وهدول هدي wax fahmaan toosanaan kara dadka badhna hamiba male sida xooluhu isaga nool yihiin wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahaa waagu saakana beriyeena dhaqaajiya weeyaan adceedan soo baxeedu iska sugaya wax kale oo uu ku hamileeyay ma jiro waxay yidhahdaan kuwaasi waa kuwa hadday joogaanna wax lama weydiiyo hadday maqan yihiinna lama tabo meesha hadday joogaanna cidi wax ma weydiiso hadday maqan yihiinna lama tabo erayadaasi afarta kooxood aynu u qaybinay bitacbiir ibn al-qayyim haddaynu soo qaadanay wuxuu leeyahay bini aadamku wuxuu ku kala gedisay buu yidhi laba shay macrifatu alxaqi min albaatil oo ahdaafta iyo mataalibta ah iyo iithaaru alxaqi cala albaatil oo hamigii kugu bixinayaya xaqa iyo baatilka inaad kala garato iyo xaqa inaad ka doorbido baatilka oo aad raadacayso masaladaa markaynu eegna buu yidhi basharku aqsaama faray u qaybsamaan kooxda ugu sarraysaa buu leeyay waa ambiyada ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba uli laydi walabsaar waxaad xustaabaa ilaahay leeya addoommahayagii nebi ibraahim ahaa isxaaq ahaa yacquub ahaa saddex nebiyoo isdhalay ilaahay muxuu ku sifaynayiin ululaydi iyo walabsaar waa ululaydi ay uluquwa quwa nafsiya himma caaliya quwa camaliya bay leeyihiin waxay kaloo yihiin baa la yidhi ulil absaar waa indheergarato labadiiba iyagu way wadaagaan hadafkuna wuu u cadiyey oo xaq iyo baatil way kala garanayaan meesha lagu socdo ahdaafta koraysa iyo kuwa dani ah waa u kala soocan yihiin himmaddii iyo waxqabadkiina way leeyihiin idan bulshada gruubka labadaa helaa ugu sarreeya waxaa ugu hooseeya gruubka labadaba la man laysa lahu basiira wa huwa daciif aragti fogna ma leh hamad wax qabata iyo awood wax ku qabtana ma leh aqoonina ma jirto hamina ma jiro kaasina waa kaynu lahayn isagu tirsis maaha qayb saddexaad baa jirta hadafka wuu garanaya laakiin hamadiisaa yar oo almu'min daciifkuu nebigu ku tilmaamay hadafku wuu garanayaa janno iyo naar laga baxsoo janno la qabto ilaahay la raadceeyo adduunku aanu fogayn hadafkaasi waa u cadyahay laakiin waa daciifu lhimma waxqabadkiisaa yar aragtidaasi intuu u socdo ayaa gaaban qaybta saddexaad afraadna waa qolada cagsigeedoo casiimay leeyihin iyo himma laakiin basiiradoodaa liidata idan wixii dhaqaaqaba way iska raacayaan laakiin raacistoodaa xawli ku soconaysa sharka hadduu bilaabana xawluu jaraya khayrka hadduu bilaabana xawluu jaraya laakiin waxaa liita kala soocooda markaasuu wuxuu leeyahay ibnu اlqayim laa yakaadu yumayiz awliyaaءi الraxmaani min awliyaaءi الshayطaan bal yaxsab kula sawdaءin hamarة وكل بيضاء شحمة ويحسب الورم شحما والدواء النافع سمة لأنه ليس عنده علم وبصيرة في الدين بولي وحي عدب برور بموذا يا بولي وحي عدب برور بوهستا بولي وحي مدوبنا مدو موذا يعني أقوانتا ليدتان لكن هي مدي سوي سريسا كوح قرى هجانك وعدنته وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين والصبر كوحدة سوقنا إياه هجانو عنطنته
walidaalika ayuha alaxiba waxaynu leenahay qofka hanku iyo himmada sarraysa meelaan camalkaagu gaadhin bay xataa ku gaadhsiin kartaa aakhiro. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidkeena u tilmaamayay man hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila. ninka wanaag ku hamiya ee xataa aanay u suurtogelin inuu qabto ilaahay wuxuu u qoraa maxay xasana kaamila baa la yidhi.